إنا لله وإنا إليه راجعون geerida Kamac Ducaale oo goor dhow la xaqiijiyay maxay ahayd Kamac shaqadeeda yaa ka dambeeyay dilkeeda sidee loogu baraarugay hadda gabadhan oo la waayay bishii Abriil maxaa ka jira in dayac ay u geeriyootay maalmo la jirdilayay raashinkana loo diiday mucjiso lagu arkay marxuumadda korkeeda ujeedada loo dilay maxay tahay masarrunbaa in eedadeed oo aabba la dhalatay ay ka dambayso falkan lagu dilay Kamac dowladda Norway oo dhalasho ay ka haysatay gabadhan maxay ka dhaheen kiiskan xasaasiga ah dowladda federaalka Soomaaliya maxaa xal u ah maadaama kiiskan uu noqon doono kiis caalami ah waa war degdeg ah iyo hayaanka news fadlan haddii aad ku cusub tahay page-kan Facebook follow soo dheh muuqaalkan like saar siina share garay si saaxiibo badan oo sidaadoo kale ah ay u gaaraan wararka degdega iyo warbixinada xasaasiga ah aan halkan ku soo gudbino aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin muuqaalkan like saara waa muhiim naftu kama maaranta nasiina marka aad soo daasho ama aad ka soo baxdo shaqo waxaad u baahan tahay inaad hesho meel ay naftu ka helayso sidoo kale leh hawo dabiici ah aadna ku sheekaysan kartaan adiga iyo asxaabtaada ama adiga iyo lamaantaada caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa lagaaga furay City Coffee oo aad ka heli karto cabitaanno coffee iyo cunnada fudud oo aad ka heli doontaan City Coffee waxa ay ku taallaa agaarka isgoyska kilometer 4 ama dabaqa Som Oil wixii faahfaahin kala xiriir telefoonka shaashada ka muuqda ha moogaanin City Coffee waxaan ku bilaabayaa allaha u naxariistee waxaa goordhow geerideeda la xaqiijiyay Kamac Ducaale oo ahayd gabar caan ka ahayd baraha bulshada aaladaha kala duwan ee baraha bulshada oo dadku ay isticmaalaan sida TikTok Facebook iyo sidoo kale aaladaha kale Kamac Ducaale ayaa inta badan waxa ay soo caanbaxday maalmihii xiisadda ay ka dhex taagneed dowladaha Soomaaliya iyo Kenya xilligii uu kacsanaa kiiska la xiriira badda oo markii dambe ay ku guuleysatay dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxa ay ahayd gabar furfuran dabeecad wanaagsan isla markaana arrimaha bulshada si aad ah ugu takhasustay sida ay sheegeen dad badan oo saaxiib dhow la ahaa gabadhan geeriyootay allaha u naxariistee gabadhan meedkeeda ayaa waxaa laga helay gordhow sida la xaqiijiyay guri ku yaala degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir oo haatan baaritaano kala duwan ay ku hayaan booliiska Soomaaliya falkan waxaa la sheegay in ay ka dambayso eedada la dhalatay aabaheed waxaa la sheegay in Kamac Ducaale bishii Abriil la waayay nolol iyo geeri meel jaan iyo cirib ay dhigtay hase yeeshee goordhow ayaa la xaqiijiyay meedkeeda ama geerideeda waxaa la sheegay in raashinka laga jaray jirdil ayaa loo geysan jiray maalin walbo sida ay xaqiijiyeen dadkii saaxiibada dhow la ahaa gabadhaasi oo dhalasho ahaan markaasi ah Soomaali sidoo kalena wadatay dhalashada Norway dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ku guday jirtaa baaritaano la xiriira qaabka uu kiiskan u dhacay dowladda Norway oo dhalasho ay ka haysatay gabadhan ilaa iyo haatan kama aysan hadlin hase yeeshee waxa laga yaabaa in goordhow ay soo saaraan war xasaasi ah oo ay ku dalbanayaan cadaalad maadaama gabadhan lagu dilay gudaha Soomaaliya gaar ahaan degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir Kamac Ducaale ayaa la sheegay inay caan ka ahayd aaladaha kala duwan ee baraha bulshada oo dadku ay isticmaalaan si aad ah ayaa loogu hadal hayaa baraha bulshada geerideeda dad badan oo ka hadlay waxa ay dilkeeda u sababayeen in ay markaasi ka dambeysay eedadeed oo aabaheed la dhalatay arrimo la xiriira dhul ayaa la sheegayaa in gabadhaasi ay sababsatay isla markaana bilooyin badan loogu jirdilayay guri ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho dhacdo argagax leh ayay noqotay mucjiso ayaa lagu arkay marxuumadda korkeeda
jirdil aad u xooggan ayaa ka muuqda, taasi oo cabsi iyo walwal ku abuurtay dad badan oo Soomaaliyeed kuwa oo ka naxay qaabka falkan uu u dhacay. baraha bulshada meel walbo waxaa lagu dalbanayaa cadaalad, siiba barta loo yaqaano Twitterka oo dadka Soomaaliyeed intooda badan ay cadaalad markaasi uga dalbanayaan dowladda federaalka Soomaaliyeed. gabadhaasi Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Kamac Ducaale oo geerideeda goordhow la xaqiijiyay. haddaba daawade, allaha u naxariista Kamac Ducaale waxaad ugu soo duceyn kartaan qaybta hoose ee commentiga. tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.